السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله قال يقص دواجر لك أنا بكس الدق أكاديمي أو كوا عاوين إن هنجاسي فوت كبرتد قرآن كريم كرينات كلها أخرسد إن شاء الله مقال كلمات وحقوق هذا دونا حلقة أفراد دورة منهج التطبيق في تعليم قواعد القراءة والكتابة وأنا دورك سابسا توبرك معلنك هنجادة إيقاف هنجاد المها لبرة كفائدة استا. كوسو دوا مركل مقالك إن حلقة سدحات وعن كوسو قاذني qaabka ugu fudud ee ciyaalka lagu bari karo xuruful hijaaga marka maadaama aan baranay qaabka ilmaha loo baro xuruful hijaaga haddana waxaan rabnaa marka inaan aragno qaabka aan ugu qori lahayn buuga qaabka buuga uu noqonayo yani ilmaha waxay isticmaalaan buugaag caadi isticmaalaan sida buugan oo kale u fiirso buugaagkan ayaa madaarista laga isticmaalaa iyo dugsiyada marka ilmaha dhanna kan ay isticmaalaan marka waxaan rabnaa inaan aragno qaabka aan casharka buuga ugu qori lahaa ama casharkiiba sida buuga aan ugu qori lahaa ayaan isla fiirinayna insha Allah maxaa lahaa buugan waxaan u qaybinaynaa saddex qayb ayaan u qaybinaynaa qaybna waxaan ka dhigaynaa meesha casharka aan ku qori lahaa iyo qaabka casharka aan u qoraayo iyo siduu yahay ayaan ku arki doonaa qaybta kalena maxaa lahayo meesha yani homework iyo classwork iyo shaqada ilmaha ama shaqada ardayga ayaan ka dhigaynaa qaybta kalena waxaan ka dhigaynaa meel uu cunuga ama maxaa arday uu ku soo feegaaro meel feegaar ah insha Allah marka waxaad ka dhigi kartaa hadaad u baahato waxaad ka dhigi kartaa hal buug waxaad ka dhigi kartaa casharka ahaan ka dhigi kartaa hal buug kalena waxaad ka dhigi kartaa homework iyo classwork ayaa ka dhigi kartaa buug kalena aad ka dhigi kartaa meel uu ku feegaaro meel cunuga ama maxaa arday uu ku soo feegaaro ka bacdi maxaa casharkiisi uu ku qoro wuxuu soo feegaaray ilaa macalinka waxa laga rabaa markaad xarafka barayso cunuga waa inaad marka hore tustaa xarafkan sidaan u qormaa cunug waa inaad bartaa sida uu qormaayo okay meesha aad ku soo bari lahayd aad ku soo tusi lahayd ayaa waxa la meesha uu cunuga ku feegaaray ayaa waxa laha feegaartaas waxa ka dhigay kartaa buug kale ayaa ka dhigay kartaa buug kale waxaad u isticmaali kartaa homework iyo classwork iyo shaqada maxaa la ardayga ayaa ka dhigi kartaa buug kale waxaad u isticmaali kartaa casharkii oo kaliya yani casharka maalinlaha oo maalin walba aad siinaysay buug gooni ayaad u sameyn kartaa ama maxaa lahayo hal buug ayaad isticmaali kartaa casharkii iyo homework iyo classwork yani shaqadii iyo meesha kale aad ku soo feegaaraysay ayaad ka dhigantaa waxa waa sida adiga ka dhigatid leewaaye marka ila fiirsada marka yani maxaa la qaabka aan maxaa lahay buuga u isticmaali doono yani ila fiirsada ila socda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن بوجا وكنا إن وحروا مرك هذا إن المحل حروف تهجاج أما 10 كم إن أخرى إن محل أرضية مرك كم على أهان سيدا أن بوجا أن استعماله أما محل سيدا أن كدجايو يعني محل روا إن إذن تصو وفيرس مركا إن وحد هاي إن بوجا واحد يعني أكل بحين كرتا أما يعني محل هاي يعني 10 كبوجا يوسمين كرتا فيجارك بوجا يوسمين كرتا إن محل هاي شقدي iyo homework iyo wixii maxalla buug ay u isticmaali kartaa oo saddex buug ayaad isticmaalaysaa midna 10 inaad ka dhigtid midna ka dhigtid maxalla haay in feegaarti midna maxalla shaqada inaad ka dhigtid kulli waad awoodaa waa yeeli kartaa maxalla hadaratidna waxaad isticmaali kartaa halka buug oo kale isticmaalaysaa maxalla haay qaybna 10 aad ku qoraysaa qaybna maxalla homework iyo classwork ayaa ka dhigaysaa qaybna meesha ku feegaaraya ayaad ka dhigantaa marka maxaa lahayo sida artid yani maxaa lahaa adiga ku xiran tahay ka macallin ahaan hada marka tusaale ahaan anaga waxaan isticmaalinaa buugan yani halkan buug ay isticmaalinaa dhinacana casharka ku qori doonaa dhinacana maxaa lahaa shaqadii aan ku qoraya dhinacana meeshan cunuga aan kula soo feegaarayo waaye maxaa lahaa waxaan rabaa mar inaan sheego feegaarta waxa waaye meel oo maxaa lahaa cunuga aad ku soo barisid qaabka xarafka loo dhigayo meel aad ku soo baraysaa meel uu soo qoqolucinayo oo soo tiraya markuu si fiican uu soo fahmo casharka ayaad keenaysaa marka meesha uu maatan uu ku falfalaaday ayaa waxa lahaa feegaar ayaa lahaa office marka hada buug waaba kana ka soo qaad buugi waa kana xuruuf hijaaga ayaad bar rabtaa taariikhda ayaad qoraysaa taariikhda 12 maanta 8 waa bisdeedan 2002 marka xuruuf hijaaga ayaad bar rabtaa مثلا ka soo qaad maxalla cuniga waa 3 jir waaye 3 jir waaye maxaa lahaa waxaan dhahay 3 jirka hal xaraf ilaa 2 xaraf ayaa ku filan marka hadda ka soo qaad ba hal xaraf bis ayaan bar rabaa 2 xarafna waa dhigi kartaa dhibaato ma laha hal xaraf aan bar rabaa maxaa sameeyaan office meeshan alifka ayaan qorayaa markaysa hay alif kale aan qorayaa hadana alif kale aan qorayaa meeqa alif waay 3 alif waay ma jeedaa yani maxaa lahaa hadana inta hadana waan gadinayaa inta dana alif kale ku qoraya u fiirso meeshan alif kale dana alif
ألف ألف هذا محل بيج كلا هذا ألف 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 مركز هذا وحاول سدح بيج واجا هذا شن بيج كده يقرأ أفر بيج كده يقرأ هذا اللي كوتالا مركز لكن محل هاي عنق إن شغل لو بديو أنا أد وأنصور دبيا محا عنق يعني محل قريتان محل هاي وبرنايا فريسن ويتكانايا مركز أساس سدح هذا بيج أساس أي لي أنت مركز واحد كده مركز وان محلها وان حريقة مجدة وحريقة كبعد هذا لحظة كحريقة وهي يصوب بحي بوكس أي يصوب بحي مجدة بوكس أي يصوب بحي بوكس أي أساس يصوب بحي مجدة بوكس واي بوكس أي أساس يصوب بحي وفي سماش أساس فهميسا مركا ألف مركا ماشي قر بيش كان هرت إسكاف بيش كان محاول كسر برنيسا المها إلا نواجد زيحان المها يعني محل بواقته مركا بيش كان مركا وضاف في مركا لكن عسك ماشي نك بلاوانا مركا ماشي أن ألف قرن عنقنا ألف إنه كوتوسي إسلام مركب ملقى يابو إلا محلها وحانيت محلها إنه برتوا إنه برتد واي سيد الله قرن ألف كان صار أطوسان عنق إسلام مركب مكوقر كر محاسة مينه بوجا جداش يسجي لا صوف فيجار تدجينيسا مجدا أنت كوسو فيجاريسا مجدا مشان وحال هذا ألف غر قر وحلقة إنه كاجي جيدا لقيابا أما أوخل قلوعي وصان أوخل قلوعي لقيابا هذا مركب حسبينيسا ولا تتوسينيسا وتوسيني كودر لقبه عند لقبه توسي كده مركب سو وضو سو وجي جيداي marka dambe waxa laga yaabaa inuu yiriis oo ka dhigo waxa dhada yiriis rabaa gacan saas dhe ilmaha ilan ina saas dhan yiriis rabaa dhe een meesha saas u jeedo waxa la yiriis iyo qoraalada yiriis saas hadho bis saas hadho soo wado marka balance marka si fiican asa oo maxallaha ayna alif toosan ay ku qori doonaa waxa leedahay haduu oo maxallaha oo soo yareen waayo waxaad leedahay marka waxaad qori marka alif dheer iyo alif oo saa u gaaban adigu waa weydiinaysaa ana kee rabaa leedahay midkaan dheer kama rabaa midkaan yiriis ka rabaa wuxuu ku dhahay yiriis ka rabaa haybis yiriis ka qor markaas wuxuu isku dayaa inuu yiriis qoro ayuu isku dayaa ma fahmid marka meesha dhan ha buuxiyo alif saa u buuxiyo markuu insa u buuxiyo ood xaqiiqsatay ama hubsatay inuu uu dhigi karo alifka markaas ka bacdi aad keenaysaa marka waxaad keenaysaa 10 kiis aad keenaysaa ka bacdi meeshan in buuxida marka ألف كان هوستيس وبوحنا مجد تسوي بوحنا مجد تسوي بوحنا ووضع ولي بوسي وضع إتنا بوحنا مثلا أنا أساب بوحنا مجد ما لحسنا أساس بوحنا ساس أيوك وضع مركا نمحل هاي وضع آخر نيسا ونقرأ آخرين يوح أسكول وضعسا يقرال واد أخرج كم محاوي ألف ساس الآيات قوة ديسا مركب وقرية يعني محل وون أخرنايا ساس قوة ديسا بيجي كان لايجنا ساس وبوحنا مركب أنتم كوب بوحي مركب واد أصحي واد أصحي سا مركب أسعد وحسمين سا هذا مركب وحسمين سا مركب إذا مركب حقوق سا تدريب محل هاي كلاس وقت ده داربتيد هذا اللي كوتالا أما هم واقدة هذا واحد كقرأ ما فهمت مركا وحسمينيسا مركا هي أنت ألف يقرأ للعنقة حتى إلى واد برتموكته وون كقرأ أو بيجي بدل بقرأ وحلا هذا هي ألف يقرأ للعنقة مركا سو كقرأ مركا ألف كقرأ مركو كقرأ ألف أنت لو كقرأ هي بيج كلا هذا هذا يقرأ هذا ألف هذا بيج كلا هذا إلا إيشان بيج أيات جارسينيسا أما أفر بيج جارسي دبعت ملان هذا سيدي أدو حريقيسا وكلي سيدي مجدا سيدي أيات وحريقيسا فهمت سيدي أيات وحريقيسا كبعد مع سمينيسا ببوحي اللي حاجة فريسينيسا واتكو إلا لنيسا وكلية ببوحي ساسو ببوحينا سيدي هذا وكلم كبعد مركو كوسو ببوحي محلها واتقصحيسا أما حالا حرفها كو إكاد أما لو حرف سي إسلا قاب كاسات كو ديسا هدي ألف إي بعد أقرتي ساسيد أيات صبريسا بعضنا واد لصو فيغاري واد صوتو سيسا كبعد 10 كاد كيني مركز عنق حقوق قرية 10 قروح بدن أو فيعن أو فرتوسن أيو كو قرية ما فهمتي مركا لغا مار waxaa ina marka hore aad soo tustid ina la soo feegartid marka la soo feegartid oo aad soo tustay ka bacda marka meesha 10 kiisa keen ka bacda ii qordhe marka asaa ku qori doona saadteed marka maxallaha ilmaha qoritaan waa la bari karaa ayagoo yarba qoraal iyo akhrin ilmaha waa la isku bari karaa anagana sidaas waan aaminsanahay waan xaqiiqadan waxa waa in ilmaha qoraal iyo akhrin la bari karo marka sidaas ayaad ku wadaysaa
markii maxaa la hayo maalin walba marka sidaas ay yeelaysa 10 walba aad qoraysid 10kii oo maxaa la oo page badan ku qoran 3 page amal ku qoran ka bacda markuu ku qoro meel asig kaliis uu qoray hadana markuu kaliis uu qoro hadana maxaa la hayo yani waa u suxaysa laakiin waa inaad la soo feegarta oo soo tusta si uu 10 maxaa la hayo far fiican maxaa la hayo oo asig kaligiisa uu qori karo ila marka la soo feegaraysid waxaad ka rabtaa asig inuu qori kara ka rabtaa marka hadaad la soo feegan ii qori kaliya ina cuniga maadan barnay muxuu ku qoray asi marka dhibaatay ku noqonay marka saadadteeda marka 10ka marka sidaas ayaa loo qoraa buuga saas ayaa loogu qoraa 10ka maanta aad siisay marka beri marka waxa laga rabaa inuu kaaga soo baxal rabaa 10ka shalay aad siisay beri waa inuu ka soo baxaa waa inuu ku akhriyaa markuu ku akhriyin waa inuu ku qoraa maxaa sameeynaa marka marka 10ka uu soo qoray homework siisay homework waa soo buuxiyay waa kana waa soo buuxiyay maxaa sameeynaysaa markuu soo soo buuxiyay waad u saxaysaa marka u saxayd هاي ألف كي آخر لهذا وكو آخري مع سمينا مرك يقرأ لهذا يقرأ 10 عن لقى بحين عن لقرين هوري لو مواضعي مع سمينا مركب يقرأ لهذا ألف كي يقرأ ماشي مرك ألف وكو آخر مرك يدا يعني محلها يعني ألف وكو آخر هاي أنت دن يقرأ لهذا دن يقرأ ألف هذه لو حرف سيسنا لو حرف سيدا سواي لو حرف عندنا محلها وكو آخر مركز كده بعد مع سمينا سا وادو على مدن سيدي شال أوكله أيدي شيء ayaad ku wadaysaa waad u calaamadeene maxaa sameynaa marka hay iib buuxile uu ku soo buuxina markuu ku buuxi waad u saxay markaas waxaad u qoraysaa marka 10 cusub ayaad u bilaabaysaa marka meesha maxaa ku xasilay maxaa ku hagaagay 10kii maxaa la hayo oo shalay in la soo qoray oo laga baxay oo hadana aad weydiisay maxaa la waad weydiisay waad ku imtixaantay oo ku qoray woona ku akhri maxaa kala rutay marka horad u wadaysaa lahayo qaabkaas waxaan rabay inaan idin kugu tuso insha Allah yani qaabkii maxaa lahayo buuga loo qoro waxaan ilaahay maxaa lahayo waxaan rajeynayaa inaad maxaa lahayo aad fahanteen inaad maxaa la iga fahanteen ayaan rajeynayaa insha Allah ilaahay waxaan ka baray inaan idin kugu anfaco qaabkaas ayaa buuga loo qoraa casharada dhanna sidaas ayaad u qoraysaa insha Allah marka intaas ayaan ku joojinaynaa maanta jazaakumullahu khayr assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh